Asalaamu calaykum. Markale kusoo dhawaada channelkayga. Videogan waxaan kaga hadli doonaa xigmad ka mid ah xigmadihii uu lahaa Mahatma Gandhi, halyeegii waddanka India. Daawasho wacan videoga. Mahatma Gandhi waa halyeey u dhashay waddanka India. Waa ninkii ka xoreeyay waddanka Hindiya gumaysigii Ingiriiska, waxaana uu soo maray dhibaato aad u fara badan. Haddaba shakhsigani oo hadalladiisa iyo ficiladiisa dunidu u yihiin bartilmaameed, waxaa qabsaday qiso aad u xigmad badan. Maalin maalmaha ka mid ah, Mahatma Gandhi oo aad u dheereynayay si uu u gaaro tareenka oo ka dhaqaaqayay. Markii uu tareenkii fuulay ayaa ka dhacday mid ka mid ah labadiisa kobood oo u gashanaa. Nasiib daro, tareenkii waa uu dhaqaaqay oo kabtii halkii ayuu uga tagay. Gandhi waxa uu siibay kabtiisa kale, wuxuuna xoog ugu tuuray meeshii ay kaga dhacday kabtiisii. Saaxiibadii ayaa aad ula yaabay waxa uu arrintaa ula jeedo, waxa ayna weydiiyeen sababta uu u sameeyay sidaas. Gandhi waxa uu uga jawaabay erayo aad u cajiib ah oo ahaa: waxa aan jeclaystay ruuxii faqiirka ah ee hela kabtaasi in ay u noqdaan laba oo uu ku intifaaco. Haddii ay u noqoto kab keliya, waxba uma faa'iideynayso. Haddii aan aniga kab keliya lahaado, waxba kuma faa'iidayo.